toddobaadkan waxaa magaalada New York ee dalkan Mareykanka ka socday shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo ay ka qayb galayeen guud ahaan dalalka caalamka. Soomaaliya waxa uu ka qayb galay wafdi horkacaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Wafdigaas waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar. Yuusuf ayaa shalay markii ay soo ilaatay khudbadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre aan kula kulanay hoteelka uu ka degan yahay magaalada New York. Waxaana wax ka weydiinay in uu warbixin guud naga siiyo shirka iyo waxyaabihii uu qabsoomay. waxa weeye shirkan waa shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo sanadkiiba mar ay isugu yimaadaan hogaamiyaasha caalamku waana madal adduunka oo dhan dal waliba uu cod ku leeyahay 193 dal ayaa isugu yimaada mid waliba waxa ay la tahay iyo arrimaha caalamka sidoo uu arko iyo dalkiisa sidoo uu arko ayuu ka waramaa. marka waa fagaara caynkaas oo sanadkii mar la isugu yimaado anagu waa ka soo qayb galnay. wafdiga Soomaaliya waxa hogaaminaya ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre, waxa kamid ahaa aniga kamid ahaa, waxa kamid ah wasiirka difaaca, waxa kamid ah wasiirka qorsheynta, waxa kamid ah wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ayaa kamid ahaa. waxa kamid ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya Stockholm Sweden oo maadaama uu hore uga shaqeyn jiray halkan oo danjira ku xigeen uu ka ahaa aan u keenay inuu gacan siiyo danjiraha cusub Abuukar Baale Abuukar Cusmaan. marka sidaas ayaa teamku ka koobnaa. waxaana halkan aan ka qabanay in shirka golaha guud ee qaramada midoobay uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka jeediyo khudbad ka waramaysa waaqica Soomaaliya, horumarka ka jira, culayska saaran, dhibaatooyinka jira, kuwii laga soo gudbay iyo caalamka kale sida ay Soomaaliya wax u aragto. khudbad ku saabsan kaalinta haweenka ayuu si gooni uga hadlay oo si qurxoon uga hadlay. marka khudbadaas ayaa ugu muhiimsaneyd. waxa laakiin iyaguna muhiimad weyn leh in aan horta waa mari dhageysanay khudbadihii caalamka oo halkan ka jeedinayay oo dal waliba jeedinaya oo madaxweynayaashooda hogaaminayeen, qaarkood boqorra hogaaminayeen, qaarkood ay ra'iisul wasaareyaal hogaaminayeen, qaar badanna ay wasiirada arrimaha dibadda hogaaminayeen. waxa iyadana dheerayd oo gooni ahayd oo dhaqanka madashaanba ka mid ah in fagaarahaas toddobaadkaas New York la isugu wada yimaado in gooni wixii dana ka dhaxeeyaan ay soo arkaan. marka dawlado badan ayaan aragnay, waan isqaybinay. qaar badan ra'iisul wasaaraha ayaa arkayay, qaar kale oo badan aniga arkay, qaar kale waxa arkay wasiirada qaar. marka tusaale ahaan ra'iisul wasaaruhu wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha, ra'iisul wasaaraha Ethiopia, madax sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka, wasiiro dhowr ah oo wadamo kala duwan ah, ra'iisul wasaareyaal iyo madaxweynayaal ayuu arkay. aniguna sidoo kale waxaan la kulmay wafuudda qaarkood ama wasiiradooda arrimaha dibadda qaar uu madaxweyne ra'iisul wasaaruhu arkay ra'iisul wasaareyaal kale amaba kuwa aan wafdi aan cid kale la kulmin oo wasiiradooda arrimaha dibadda aan la kulmay. dalal aad u fara badan ayaan la kulanay. dalka xiriirka dhow naga dhaxeeyo ee Turkiga madaxweynihiisa ayaa kamid ahaa madaxdii lala kulmay oo ra'iisul wasaaruhu la kulmay. inta badan aan la soconay wasiiradeenu shirkaas. marka shirar noocaas ayaan galnay. dal walba wixii kala dhaxeeya ama dhibaato ah ama wanaag ah ama codsi aad u jeedinayso ama isagu ku jeedinayo sababtoo Soomaaliya dadka qaar waxay u arkaan Soomaaliya inaan dana laga lahayn, laakiin waxa weeye dalal badan ayaa nagoobayay oo cod nooga baahan qaramada midoobay dhexdeeda. ama waa dalal doonaya inay galaan golaha amniga ee qaramada midoobay, ama waa dalal gudiyada kale ee UN-ta ama qaramada midoobay u doonaya inay xubin ka noqdaan oo loo codeeyo. marka dalal badan ayaan raadinayay oo ayaguna soo dalbaday oo la kulanay. dalalka qaar arrimeena la socodsiinayeen xogaalnimo, qaarkood annaga ayaa wada hadal la lahayn.
wasiirka arrimaha dibadda qatar ayaan aragnay, wasiirka arrimaha dibadda imaaraadka carabta ayaan aragnay, wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga ayaan ballansannahay, wasiirka arrimaha dibadda kuwait ayaan is aragnay, wasiiro badan ayaan sidaas ku aragnay, madaxweyneyaal ayaan aragnay, wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia maanta ayaan wada fadhinay, wasiirka arrimaha dibadda Kenya, kan Djibouti, sidaas ayaan dalalka dariska ah, dalalka AMISOM ee ciidamadu ka joogaan, qaramada midoobay, ururka midowga Afrika. mudane wasiir, waxaa su'aalay ka taagnayd codka Soomaaliya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyadoo loo aaneynayo gulnadii qaramada midoobay ay Soomaaliya ku lahayd oo aan la bixin. Arrinta ayada maxaa ka jira? Soomaaliya waxyaabo badan ay codad leedahay, gudnadu wax walba ma saameyso, waxyaabo ayay saameysaa, waa xubinnimada lacagta lagu bixiyo, marka waxa weeye waxyaabaha qaarna way saameysaa qaarna ma saameyso. waxyaabo badan ayaan ka codayn karnaa oo codkeena ka dhiiban karnaa, dowlado badanna wayna weydiisteen codkeena, in lacagna lagu leeyahay macnaheeduna ma aha inaanan codadkeena iyo ka samarnay ama iska dhiibnay. lacagta waan iska bixinaynaa, waan codaynaynaa, guddi walbana waan ka tirsannahay iyo xubinnimadeennana waan ku codaynaynaa. marka la joogo meeshan qaramada midoobay, marka la joogo 193 dal ee fadhiya waa isku cod. dalka dhowr iyo 10 kun oo ruux dadkiisu ka kooban yahay iyo dalweynaha Shiinaha adduunka ugu tirada badan waa isku cod. dalka adduunka ugu dhaqaalaha badan iyo kan ugu saboolsan waa hal cod iyo hal cod. marka dalalka adduunku way siman yihiin halkan marka la joogo, marka waliba la joogo golaha guud ee qaramada midoobay oo san looga soo wada qayb galay. waxa lagu kala duwan yahay golaha amniga marka la tago ayaa jira 5 dal oo joogto ah iyo inta kale oo mar walba labadii sanaba mar soo gala, iyo 5taas dal oo leh cod diidma qayaxan ah. marka golahan guud waa golo loo siman yahay, waa golo loo dhan yahay, waa golo loo siman yahay, isku cod la yahay. sidaas ayayna ku dhacdaa in codadkeena dal badanna weydiistaan. mudane Yuusuf, waxaa weli taagan khilaafka u dhaxeeya wadamada Carabta, waxaad la kulanteen wasiirada arrimaha dalalkaas, waxaad nooga sheegi kartaa halka ay Soomaaliya ka taagan tahay khilaafkaas? halka ka taagan tahay Soomaaliya waa halka ay hore u sheegtay, waa ka dhexdhexaad. Soomaaliya ma doonayso dadka walaalaha ah khilaaf ku dhex maray in ay ku biirto oo ay group gooni la safato, group kalena ay weerarto. Soomaaliya waa dal madax bannaan, waa dal isaga tiisi haysato, waa dal dhibaatooyinka iyo colaadaha iyo abaaraha uu ka soo kabanayo oo soo maamulayo oo asagu hadda dib isu soo fahmaya. dib u heshiin badan ay socoto, horeyna u dhacday. ma aha dal u diyaara inuu hadda ka qayb galo khilaafaad dalal kale ka dhaxeeya, inuu dhexboodo oo kaalintaas u cayaaro. wuxuuna ku taliyey kuna talinayaa in dadkaas walaalaha ah wada hadal arrintooda ku dhammaystaan, laakiin marnaba annaga aanaan qayb ka ahayn colaadaas. marka Soomaaliya taas ay ka taagan tahay. dowladda Kuwait oo dhexdhexaadin ka wada ayaan wasiirkeeda arrimaha dibadda xalay is aragnay, kulana qaadanay. kaalintaas Kuwait ee dhexdhexaadnimada ah maarta ay doonayso inay ku dhexdhexaadiso wadamadaas u kala dab qaado ayaan annaguna taageersannahay. qaybna kama dhihin colaadaas. kulligoodna waa dalal aan saaxiibnahay oo xiriir qoto dheer naga dhexeeyo. dalalka Masar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo Qatar intaba xiriir fog ayaa naga dhexeeya, haba sii kala weynaado xiriirka nagala dhexeeya dalalkaas. mudane, waxaad wax ka hogaamiseen shir ay ka qayb galeen dalalka deeqaha ama dhaqaalaha ku bixiya ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya ku sugan. shirkanna waxaa la qabanayaa xilli la sheegay in uu yaraaday dhaqaalihii ciidamadaas ku baxayay. arrinta ayada wax ma nooga sheegi kartaa? dhaqaale maahay, waxaan u maleynayaa ula jeedo lacagta ku baxda ama ay ku shaqeeyaan ciidamada amniga midowga Afrika ee wadankeena jooga AMISOM. lacagtaas hadda ka hor ayaa la dhimay, haddana xilliga ay ku eg tahay midii ku sii xigtay ballanqaad weli buuxa lama wada hayo. marka walaacaas waa jira, wadamadaas ayaa doonayay inay lacagtaas dalbadaan. dhibaatada lacagtaas haddii aan la bixin ka imaan kartana ay sii sheegaan. annaguna dowladda Soomaaliya haddaan nahay AMISOM waan taageersannahay, waanan la codaynay oo in maaragtay codkeena waan ku darnay in dalalkaas
kharashka uga baxa ciidankaas kharashka ku baxa amisom in deeqbixiyaashu ama dalalka hantida leh ee wax bixiya ay bixiyaan marka taasi waa midaan taageersannahay waan rajaynaynaa inta annaguba ciidankeeni baan dhisanaynaa inta ciidankeenu dhismayo in amisom ay sii joogi doonto oo marba ciidankeenu intuu la wareegi karo uu kala wareego oo ay kasoo baxaan sababtoo wadanka waxaa u ciidanaha xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliiska marka iyagaas ayaan rabnaa inay amniga si tartiiba ula wareegaan haddii ay biraahdo oo dalkeenu uu isku filaado. Saacad wasiir madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump waxa uu la kulmay madax ka socotay wadamada qaaradda Afrika. Soomaaliya kama aysan qayb gelin arinta maxaa loo sababeynaya? waxaan kuu sheegayaa halkan shirarka ka dhacaya ma aha shirar kooban maaha shirar aad iyo aad u fara badan ayaa ka dhacaya shirarkaasoo qaarna afrikaan ahaan lagu tagayo qaarna wadan loo tagayo ayaa socda isla laba dawladood hal dawlad ayaa laga yaabaa oo aan xiriir la leenahay in ra'iisul wasaarahooda la kulmo aniguna wasiirkooda arrimaha dibadda la kulmo isku marna ay dhacayaan labadaas kulan ama waqti isku xiga ay dhacayaan marka anigu inta kulan meeshan ka dhacday oo dhan iyo mid walba iyo wuxuu ahaa kuma wada sheegi karo waa kumaniyaal fadhi ayaa ka dhacay meeshan toddobaadkaas gudihiisa marka ra'iisul wasaare xasan waxaan kuu sheegayaa oo Soomaaliya matalaya inuu ka qayb galay casho uu sameeyay madaxweynaha Mareykanku Donald Trump oo ra'iisul wasaaraha marwadiisu ay ka qayb galeen lagu marti qaaday inay is soo arkeen inay madaxda kale Mareykanka is soo arkeen waan ku xaqiijin karaa marka kulamo gaar ah oo Mareykanka la lahayna ra'iisul wasaaraha hogaaminaya oo way qabsoomeen. Waxaa tahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliyana go'aan cad ayay ka qaadatay khilaafka u dhaxeeya wadamada Carabta hase ahaatee waxaa soo baxaya dacfuruur ama hadallo ka soo yeeraya maamul goboleedyada kuwa oo heshiisyo gooniyan la galaya hadallana ka oranaya halka ay khilaafka ka taagan yihiin arinta maxaad ka oranaysaa? dalka Soomaaliya waa dal dastuur leh waa dal dawlad leh waa dal dawlad goboleedyo leh waa nidaam federaal ah dawlad kasta iyo hay'ad kasta oo dalka Soomaaliya ka tirsan kaalin ay leedahay marka ay joogto xiriirka dibadda marka ay joogto arrimaha socdaalka iyo immigrationka marka ay joogto lacagaha marka ay arrimahaas joogto difaaca markay joogto dalka Soomaaliya dastuurkiisa sidoo qorayo waxa awooddaas leh ama mas'uuliyaddaas leh dawladda federaalka ah ayaa iska leh wixii ku saabsan heer gobol oo dawlad goboleed ah oo ku saabsan kobcinta dhaqaalaha deegaankaas amniga deegaankaas horumarinta deegaankaas dawlad goboleedka ayaa iska leh marka waxa weeye dalku sidaas ayuu kala qaybsan yahay fowdlana ma aha qofkii isku daya inuu asagu fowdlo ka dhigan taas waa meesheeda laakiin waxa weeye dalku fowdlo ma aha waxaana loo baahan yahay dadkeena Soomaalidu inaan isu caqli celino waxa loo baahan yahay inaan iskaashano waxaan loo baahan yahay in la tashado go'aamada waaweyn waxa loo baahan yahay hadii talada qaar aan la iska qayb galin in la is xusuusiyo oo laga wada hadlo oo listoosiyo laakiin dalku ma noqon karo dal 15 isteerin leh ama 6 isteerin leh oo dawlad goboleed waliba dawladda rabta ay xiriir la gali karto ama dalka rabta dagaal ku qaadi karto ama ay nabad la gali karto ma aha dalku wuxuu leeyahay hoggaan madaxweyne Farmaajo ayaa hogaamiye u ah wuxuu leeyahay xukuumad ra'iisul wasaaraha ayaa maamula baarlamaan ayuu leeyahay laba aqal ka kooban laba gudoomiye ay kala leeyihiin intaas ayaa federaal ah dawlad goboleed waa qayb weyn oo wadanka kamida mas'uuliyadeeda ay leeyihiin madaxweynaha dawlad goboleedku iyo golihiisa wasiirada iyo baarlamaanka deegaanku waxay leeyihiin awood ay leeyihiin iyo mas'uuliyad u gaar ah laakiin awoodooda iyo mas'uuliyadooda kuma jirto caasimada shisheeye in inta tagaan ay dawladoodii mucaaradaan ay kale ay go'aamo ay la gaaraan iyo heshiisyo taasna ma ahan wax maartay qarannimada Soomaaliya u turaya ama u daneynaya ama dhisaya ma ahan waxaan u baahanahay dhexdeena inaan iska wareysano Soomaaliya hadaan nahayna aan hal cod
mas-uuliyadda ciddii loo dhiibo iyo awoodda ay u leedahay in looga dambeeyo ayaa wanaagsan. taas ayaana aniga ra'yiga iyo taladeedu ay tahay. ugu dambeyntii, wasaaradda arrimaha dibadda ee aad madaxda ka tahay maxaa ay ku soo kordhisay dowladnimada Soomaaliya muddadii ay dowladdan cusub jirtay? arrimaha dibaddu ma ahan maaragtay warshad yar oo inta la dhiso maaragtay wixii ay soo saartay miiska la soo saaraya ma ahan. waxa weeye in xiriir wanaagsan oo dhow dalalka dariska lala yeesho, in xiriir wanaagsan oo dhow lala yeesho dalalka caalamka ee danaheenu naga dhaxeeyaan saaxiibtinimada leh. waxa weeye in dalkii khilaaf naga dhaxeeyo, khilaafkaasi inuusan colaad iyo dagaal tegin, hadal lagu xaliyo in laga shaqeeyo oo xal loo raadiyo. waxa weeye in saaxiibo cusub loo yeelo dalka. waxa weeye in lagu matalo magaca Soomaaliya iyo sumcadda Soomaaliya shirarka caalamiga ah. waxa weeye arrimaha caalamka ka socda go'aanka laga qaadanayo inuu ahaado go'aan madax bannaanidaada iyo danahaaga muujinaya ee aanu noqon go'aamo maaragtay dad kale u daneynaya ama dalal kale u daneynaya ama maaragtay dhib kale ku abuuri kara adiga. marka xiriirka dibadda waxa weeye siyaasadda dibadda waa waddanka dhan sidii looga iibin lahaa dibadda. waxaan u malaynayaa qaramada midoobay xiriirkan la leenahay dalalka saaxiibada ah ee dariska nala ah ee ciidamadoodu ay ku dhimanayaan waddankeena si ay dowladdeena u daafacaan iyo nabadgelyadeena u daafacaan. xiriirkan la leenahay dalalka khaliijka ee saaxiibada aan nahay ee xiriirka qotada dheer naga dhaxeeyo iyagu iskhilaafsan ee haddana aan anagu qolo walba xiriirkeedii la wadno. marka la fiiriyo dalka Turkiga ee ah istaraatiijika xiriir ah naga dhaxeeyo, xiriirka aan la samaysanay iyo meesha uu marayo xiriirkoodu. marka la fiiriyo dalalka galbeedka ee gacantana siiya xiriirkeenu meesha marayo. marka la fiiriyo dalalka muhiimka ah adduunka xiriirkeenu aanu badnayn sida aan hadda u bilownay, ama Shiinaha ha noqoto ama Ruushka ha noqoto ama India ha noqoto oo xiriir weyn aanu nagala dhaxayn jirin sida aan u bilownay. marka la fiiriyo muwaadiniinteena dhibaatadu ka haysato dibadaha sida aan ugu istaagnay xuquuqdooda oo ama Itoobiya maxaabiistan ka soo celinay faraha badnayd, ama kuwa India aan rabnay inaan hadda heshiiska la soo galnay ee aan doonaynay inaan ka soo celino, iyo dalal kale oo wada hadal noo socdo. marka la fiiriyo kaalinta firfircoon ee aan ka qaadanayno urur goboleedyada sida IGAD iyo AU iyo jaamacadda Carabta iyo ururka qaramada midoobay ee adduunka oo dhan xubnaha ka yahay kulligood. hadda ka soo qabo waxaan shir ku lahayn IGAD anagoo ah wasiirada arrimaha dibadda caasimadda dalka koonfurta Suudaanta Koonfureed waa Juba. waxaan u tagnay halkaas waxay ahayd dhexdhexaadinta kooxaha isku haysta ama arrimaha qolyaha colaadu ka dhaxayso ee dalka koonfurta Suudaan. dowladda sidii taageero loogu muujin lahaa looguna muujin lahaa in ay dhinacyada kala duwan wada hadlaan oo xabadda la joojiyo oo qaxootiga la joojiyo oo dowladnimada la adkeeyo koonfurta Suudaan. kaalin ayaan ku leenahay. wafdi ayaa hadda loo diri rabaa dhowr dal ka kooban inay dhinacyada qaar la soo hadlaan. wasiir dowlaheena ayaa ka mid noqonaya oo hadda halkan ku go'aaminay. marka arrimaha dibadda xiriirka laga keenaya waxa weeye wax waqtiga dheer ah weeye, waqtiga dhexe weeye, wax maaragtay bil iyo 2 iyo 3 loo tirinayo natiijada dhashay ah ma ahan. laakiin runtii guulo aan gaarnay oo qaarkood aan banaanka la soo wada dhigi karin way jiraan oo wadamada qaar aan la gaarnay. dhaqaalaheena iyo mushaaraadkeena hadda socda inkastoo qaar gudaha laga soo saaro, qaarna waa qaar xiriir iyo saaxiibtinimo lagu keenay oo dalalka qaar ay gacan ugu siiyeen oo waliba qaarkood ay kordhiyeen intii ayna siin jireen. marka xiriirka arrimaha dibadda waxaan u malaynayaa inuu dariiq wanaagsan saaran yahay. insha Allahuna horaan uga sii badin doonaa. aad iyo aad baa mahadsantiin. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waraysigii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo aan kula kulannay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalkan Mareykanka. tan iyo kulantida iyada dambe sidaas iyo nabadgelyo.